shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada Luuq oo looga hadlayay amniga iyo sidoo kale isqabqabsiga dhulalka waxaa shirka ka soo qayb galay ururada bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Luuq mudane Maxamed Xuseen Cusmaan Ganay oo ka dhawaajiyay ajandaha iyo ujeedka la isugu yimid xiriirka iyo waxyaabaha imanaya ama dhibaatooyinka culus iyo dhan amni iyo horumarneed intaba in maxal yahay bal la iswareysto wixii jiro ciladaha si ay meesha uga baxaan horu socod iyo wada tashi iyo maxal iska warqabna uu jiro arintaas uu ku saabsan yahay shirkanaga maantay wuxuu noo soo bilowday weegan bilowgiisii weeg hore dhamaaday arbacadii iyo khamiistii waxaan soo marnay marka kulamo badan oo bulshada qaybaheeda kala duwan saraakiisha ciidamada iyo maamulada in marka bulshada Soomaaliyeed dhaqan iyo culamo diin iyo hooyooyin iyo dhalinyaro intaba marka shidada waa mid marka wada saameynaysa guud ahaan waxyaabaha marka taagan oo targetka noo ah waa koow waa amniga laba waa amniga saddex waa amniga waayo waxyaabaha la isku haysta laftooda waxa ay keenayaan amni darro laba bulsho ama laba maxal yahay qabiil oo deegaanka ummadda degan oo Soomaaliyeed haday shay isku qabsadaan waxa ka dhalanaya markiiba hadii maamul iyo ciidan aysan goobjoog u ahayn dadka in la islaayo oo la isku baabiyo waxyaabaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu imtixaamo dhibaatooyinka waa magaha iyo dhiigaga dhulalka la isku haysto shidadoodana inaga dhamaan laada dhaqankii bulshada Soomaaliyeed hooyooyinkii iyo dhalinyaradii culumadii intaba waa u fadhinaa waxaan rabnaa marka shirarka soo socday oo maxal yahay maamuladii heer degmo iyo tuulo iyo maxal yahay kaamam iyo xaafado intaba lahaa oo aan soo marnay kii noogu dambeeyay weeye marka oo bulshadeeda kala dhamaanteed waxaan rabnaa marka dibabka ayaga oo taaganna inaan xal u helno xalka loo helayana waa dhaqanka iyo bulshada inay ayadu waxyaabaha noocaas u dhacay in garab isku siiyo shirkanaga marka ujeedkiisa iyo ajandihiisa marka waxa weeye waa amni ugu dambeyn waxa warbaahinta la hadlay bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb galay shirka waxa ay sheegeen inuu amniga si wanaagsan yahay isla markaana laga shaqeeyo horumarka ummadda Soomaaliyeed waxa la rabaa marka hadii amniga aan waxa soo dhan ka hor dhigno oo amniga aan u istaagno oo qof walba qoyskiisa uu ka soo bilaabo wax dhibaato oo dhaxay mala beeraha la xalinaya dadka isaastaday group yihiin baa la xalinaya waxbarashadii baa la aadahayaa waxa la aadahayaa caafimaadkii biyihii waa qaali waxaan awal iyo aakhir ku soo koobaya amniga aanu istaagno bay shakhsina aanu ku shaqeyno wadar guudna aanu ku shaqeyno cid kastana aan iska kaashana hadana aan iska kaashana amniga waxay u taala dhamaan dadweynaha degmada Luuq nool aniga hadaan nahay anoo ku hadla magaca dhalinyarada degmada Luuq laf dhabarta amniga anaga waxaan balan qaadaynaa sidii aan noogu yeerteen nagala shaqeeyo amniga hadayna kala shaqeeyno isku xirnaasha loo shaqeeyo mar hadii bulshada iyo maamulkeeda isku xiran yihiin odayaasha iyo maamulku isku xiran yihiin amniga iyo maamulku isku xiran yihiin amniga iyo bulshada iyo odayaasha isku xiran yihiin amni waa imaanaya amniga deegaanka waa in laga shaqeeyaa odayaasha ka shaqeeyaan odayaasha iyo maamulka inay isku xirnaadaan waa mar hadii odayaasha iyo maamulka aan isku xirneen wax amni oo laga shaqeyn karo mal dharka kan cadayste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhamaaday dhagaxaysa saaray dhoobara qasa hadday wada dhasheen dhacabkii dhacayay iga jaqaayay ruuxa iga shubaayay waan dhowrayaa waan dhiisayaa dhanka aan hayee عبدولي يوسف عابي عبدولي ودني ورك الصومالي نيوز لوق جناني